abaaro baasan ayaa ka jira gobolada bariga Soomaaliland. Xukuumadda iyo shacabka Soomaaliland waxay ku hawlan yihiin sidii ay walaalahooda tabaalaysan wax u gaarsiin lahaayeen, balse maraanu booqanay qaar ka mid ah deegaanada ay saameeyeen abaaruhu ayaa waxaanu helnay xogo ka duwan xogihii hore. dadka ku nool magaalada Inaaf Madoobe oo 60 kiiloomitir u jirta magaalada Burco ayaa qaar ka mid ah warbaahinta gobolka Togdheer u sheegay inay jiraan cabashooyin badan oo ku saabsan dhinaca abaaraha ka jira bariga Soomaaliland iyo qaar kale oo nolosha wax weyn ugu fadhiya sida rug boolis, MCH iyo waxbarasho. waxaanay u soo jeediyeen dhaliilo xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. cabashadooda ayaa muujinaysay in aan la soo gaarsiin guud ahaanba wixii loogu deeqay dadka ay abaaruhu saameeyeen, waxaana ay ka dhawaajiyeen inay biyo hayaan balse aanay helin baadkii ay ku cuni lahaayeen biyaha. si kastaba ahaatee waxay dadkani ka cabanayeen in aanay waxyaabihii nolosha ku salaysnayd aanay helin, waxayna ka codsadeen xukuumadda in hoos loo fiiriyo magaalada Inaaf Madoobe. waxaanay carabka ku adkeeyeen qaar ka mid ah xukuumadda Soomaaliland oo ay sheegeen inaanay codkoodii iyo ololahoodii aanay waxba ka soo celin. haddaba dadka degan magaaladan ayaanay cabashadooda ku ekeen abaaraha balse muujinayay inay ku khasaareen dadkii ay bacadka u taagnaayeen. waa siday hadalka u dhigeen Jaamac Ismaaciil Nuur oo ah odayaasha degmada Inaaf Madoobe. sidaa la ajligeed nooma yimaadaan wasiir, nooma yimaado barasaab, ma yimaado maayirka Burco, ma yimaado, waa nala dhaafaa. markaa waxaanu isnidhi miyaydaan jamhuuriyadda ku tirsanay. 800 oo qoys ayaa yaalla deegaanka Inaaf Madoobe oo u badan dabaqadda hoose. dabaqadda sare way ku yartahay, ta dhexena waa ku yartahay. mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan leeyahay dawladdu magaalada Inaaf Madoobe hoos ha u eegto. waa meesha keliya ee halbowlaha u ah. iskuullada iyadu waad aragteen boodhan ma lihin, ardayda maalin walba eedka ka baxda. qof kasta oo dan yara baa dhalay, riyo yar buu ku haystay ku korinayay. riyihii yaraa markii uu halkan la yidhi waa la bedelo, Burca loo bedelay, dantiisii way gaadhi weyday. xaabadaan u diranaa, biyahaan u diranaa. waxaan ku nidhi mar haddaynaan ka bixin gobolladii iska fadhi hooyo intaan kugu filan. kabacdi markaa haddii naloo dhisi lahaa iskuul aan ku wareejino dee quutal daruuriga carruurtanu la cuni lahaa oo uu noo fadhii lahaa ilmaha iyagii. sidaasaanu ku waxbarasho la'aanahay. cali bareexaan halkan waan uga ololaynay, maxay hayto ina maxay xuseen waan uga ololaynay. waxaan wax ka hayno imka biyo ka haynana ina maxay xuseen baan haynaa. waxa laaliya wixii halka ka soo baxay xildhibaano ama aha wasiiro ama wax kastaba aha. caawimo imka la bixiyaa maanu arag, miduuyaa la bixiyay, cawsbaa la bixiyaa maanu arag. gobolka Togdheer baan ka tirsan Soomaaliya Sanaagiyo sagaarba waa la siiyay. Togdheer baana gabtay oo waxa laaliya waxay ka doomayir baana arag, barasaab baana urur haween baan ugu tagnay. halkaasaanu iska qaadanay, waraaqaan u geynay, waa la tuuray waraaqaha iyaga waxna looga oofiyay ma jirto. haddaanu muwaadinay madaxweynaha Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inuu magaaladayada codsigeeda soo gudbiyo si degdeg ah loo helo. dad iyo dunya waxay u baahan yihiin wax biyo baanu helay iyadoo dawlad inooga ninka la yiraahdo ina cali wili ee jooga reer miyiga halkaas 10 booyad maalintii hore anaga baahidayada aan loogayno, dawladina nooga shicib kale noogu deeqay. waa iskuuladii hore maxay ay toy barandayaal male caruuru bacad bay maalintii inoo tuban yihiin. marka dawladda waxaan ka doonaynaa in iskuulada naloo hagaajiyo ama iskuulo cusub naloo dhiso ama kuwii hore deeha naloo dhisee. waxaanu kale oo dawladda ka codsanaynaa inaanu helno rug bilays oo magaalada dhexdeeda oo Maxamed Cabdi Cismaan, Maxamed Soomaali.